بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada dhammaan ardada Soomaaliyeed iyo bahda waxbarashada Akademiyadda Bayo Academy. Waxaan halkan kusoo gudbin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo casharadii imtixaanaha ee noo socday galaaska 12aad maadada chemistry-ga ayaan soo gudbin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan idinka raali gelinayaa habsankii yaraa ee maalmahan ayna galay. Waxaan rajaynayaa insha Allah taala sida ugu dhaqsiyaha badan casharada inaan soo gudbino una soo si isku xigaan aan soo qaadan haddii Ilaahay yiraahdo. إن شاء الله تعالى وحلاله وحيا كومنتيا وحلاله وحيا وربحنا وان سود ويننا دي لا هلا كدغو waxaan halkan u duubi doonaa maadada chemistry-ga fasalka 12aad marka la ku soo dhawaada Bayo Academy. Waxaan ku baran doonaa meeshan qaasatan fasalka form 4 ayaan ku baran doonaa hadii la yiraahdo. casharku waa casharkii sanaad ayaan ku qaad doonaa hadii la yiraahdo. wali waxaan ku jirnaa chapterkeena koobaad ee ahaa hydrocarbon ayaan ku jirnaa. waxaan hore uga soo hadalnay waxaan ka soo hadalnay alkane-ka dhowr nooc kala duwan oo alkane ayaan ka soo hadalnay. waxaan ka soo hadalnay alkaneska in loo qaybiyo ilaa dhowr qaybood. waxaan maanta joognaa alkane-ka isticmaalkiisa ayuu casharkeena koobaad noqonaya hadii la yiraahdo. alkane-ka waxa loo isticmaalo ayaan ku baran doonaa hadii la ka dhigo. waxaan soo baranay alkane-ka qaabka loo magacaabo iyo nomenclature-kiisa labadii hab oo kala ahayd ayuu baagay common system in shuruucdii loo isticmaalayay iyo waxyaabahaas qaacidadiisa qeexitaankiisa kulligood waxyaabahaas soo baranay. marka halkan waxaan ku gudbin doonaa hadii la yiraahdo alkane-ka waxyaabaha loo isticmaalo insha Allah taala. alkane-ka marka waxa loo isticmaalaa alkanes are fused as a fuel ayaa loo isticmaalaa. yani waxa loo isticmaalaa fuel ahaan ayaa loo adeegsadaa. sababtuna waxay tahay wuxuu soo saaraa kul badan ayuu soo saaraa marka la joogo gubashada. alkaneska are used as waxa loo isticmaalaa fuel ayaa loo isticmaalaa because sababtuna waxay tahay they produce waxay soo saaraan large amount of heat cadad aad u fara badan oo kul ah ayay soo saaraan marka la joogo yani combustion oo ah gubidda marka la joogo. liquidska sidoo kale waxa loo isticmaalaa solvents in wax lagu milo ayaa loo adeegsadaa. liquidska oo alkane-ka qaasatan liquid alkaneska kuwooda liquidka ah waxaa loo adeegsadaa solvents in wax lagu milo ayaa loo adeegsadaa. higher alkaneska kuwooda sarsare oo leh kaarboonka 17aad ilaa kaarboonka 20aad waxaa loo adeegsadaa viscous liquid waxa la yiraahdo oo ah adka xigeen. dabcan waa dareere haddana adka xigeen ah. intaas waxaan ku bixinaa ajiiska waxaan halka gelinaa hadii la yiraahdo cycloalkane. alkane-ka ayaa maanta waxaan ku samayn doonaa cyclo ama ring ayaan ku samayn doonaa hadii la yiraahdo. cycloalkane wuxuu ka tirsan yahay asagu saddexdii qaybood ee loo qaybinayo hydrocarbonka oo kala ahaa bond iyo structure iyo source and property. marka dib ugu laabano qaybta labaad ee structure-ka ahay labaan kala qaadnay oo kala ahayd cyclic. cycloalkane wuxuu soo gelayaa qaybta cyclic ayuu soo gelayaa. qaybta cyclic ayuu soo gelayaa oo ah yani laba qaybood loo qaybinayo. qaybta structure-ka waxa loo qaybinayo laba qaybood oo kala ahaa cyclic iyo acyclic. marka cycloalkane wuxuu soo geli doonaa qaybta cyclic ayuu ka mid yahay. marka cycloalkaneska waxaan leenahay waa acyclic hydrocarbons waa hydrocarbonska kuwooda leh dabcan cyclic ama wareega leh waaye with only single carbon bonds waxayna isku haystaan dhamaantood single bond hal dabar ayay isku haystaan. cycloalkane-ka waxaan leenahay waa la magacaabaa by adding iyadoo lagu darayo the suffix dabcan waxa waaye horgalaha loo yaqaan cyclo iyadoo lagu darayo ayaa la magacaabaa to the name of the open chain compound iyadoo lagu darayo. dabcan silsilada ama compound-ka meesha magaciisa ayaa waxa lagu darayaa hortiisa waxa la dhigayaa cyclo kadibna waxa loo magacaabayaa cyclo salaan alkane cyclo sheeg heptane oo kale cyclobutane oo kale waxyaabaha cyclopropane iyo wixii lamid ah. marka cycloalkane-ka waxaan leenahay arnamed waa la magacaabay adding iyadoo lagu darayo the suffix waxa waaye suffix-ka loo yaqaan cyclo oo ah horgalaha macnaha waxa laga dhigayaa horgalaha ayaa meeshan laga dhigayaa cyclo la adeegsanayaa
to the name magaca ayaan dhigayaa of the benzene compounds kuwaas oo leh the same number of carbon atoms as there are in the ring dabcan same number of carbon atoms haddaba marka the names of cyclic compounds-ka oo ah talaan 4 carbon 8 hydrogen waxaa loo yaqaanaa cyclobutane haddii meeshaan 10 hydrogen ahaan lahayd waxaan dhihi lahaynay butane oo caadi ayaan dhihi lahaynay laakiin maadaama maanta ay cyclo ay tahay waxaan leenahay cyclo ayaan kormarsiinaynaa waxaan leenahay markaas cyclobutane ayaan leenahay cycloalkane waxa uu leeyahay qaacido oo ah the general formula of cycloalkane waxay la mid tahay waa C(H)2N ayay la mid tahay n waxay u taagan tahay number of carbon atoms ay mar walba u taagan tahay cycloalkane inta hydrogen oo qaata si haddii ay u baahan tahay tusaale ahaan oo ku tagi doona iyada calculation waxa mar walba waxay noqonaysaa number of carbon ka lagu siiyo oo lagu dhuftay 2 leewa intaas waxaan gudbaynaa cycloalkane qaybtiisa koobaad aan ku socono marka example meeshan waxaa nagu qoran cyclopropane iyo cyclobutane ayaa ku qoran dabcan marka saddexdan carbon way isku xiran yihiin saddexdoodu mar walba waxaan aanay cyclo marka la yiraahdo waxaa sameyn karo wax allaala wixii 3 carbon ay u yartahay 2 carbon iyo 1 carbon ma sameyn karaan wax cyclo ah ama wareeg ah ama ring ah ma sameyn karayaan sababtoo ah ugu yaraan waxaa loo baahan yahay 3 gacmood marka ugu yaraato 3 gacmood loo baahan yahay si ring loo sameeyo iyo wixii ka sii badan sidaa darteed halkan waxaa noogu yaalo waa cyclopropane oo ah يعني midka ugu yar cycle-ka ugu yar ee la sameyn karo sababtoo ah 3 carbon haddii aan helin ma sameyn karaan ring 2 carbon haddii aan heli lahaynay dabcan ring ma sameyn lahayn oo wixii noqoleed ethane un bay noqoleed bis laakiin maanta 3 carbon haysanaa waxaan sameyn karnaa ring waa sameyn karnaa waayo xaggana waxaa noogu qoran marka mar walba waxaa sameey ring waxaa sameey carbonka laga ka bilaabato iyo carbonka u dhamaato silsilada carbonka ka bilaabato iyo kan u dhamaato ayaa waxay sameeyeen ring oo way isku xirmaan kuwaas ayaa mar walba wareega sameeyo ama ringa sameeyo kuwa dhaxda way dhacdaa laakiin ma badno cyclobutane ayaa halkan noogu qoran iyadana oo ah 4 carbon ayaa meesha noo taalo 4 carbon marka qaabka isugu xiran oo ujeedaa waa ringi ama waa wareeg ayay isugu xiran yihiin afartoodu mid walbana wuxuu wataa angle kasta oo ku jiro carbon kasta wuxuu wataa 2 hydrogen dabcan 8 hydrogen ee hadda aan ka soo hadlayno waxay noqonaysaa waatan waa 2 lagu diray 8 meesha ka imaatay marka waxaa ringi sameyn karo ama wareeg sameyn karo carbonka silsiladu ay ka bilaabatay iyo carbonka u dhamaatay ayaa midkiiba gacan ka maqaya si darteed ayaga ayaa isku dhigay sidaas ayuu ringi ku sameysmay marxaba halkan waxaan gelinaa marka hadii la yiraahdo alkane halkaas waxa ugu soo dhamaaday ama noogu soo idlaaday alkane ayaa halkaas ku soo idlaaday waxaan halkan geli doonaa hadii la yiraahdo alkaneska ayaa halkan geli doonaa alkaneska marka waxyaabaha aan rabnaa aan ku daraasayno ama aan ku barano waxa kamid ah kow hal casharka markuu dhamaado ardayga bartaha waxaa loo doonayaa inuu yacni qeexi karo ama awood u yeelan karo kow inuu qeexo alkane sidoo kale tusaale ka bixin karo inuu kala saaro alkaneska iyo inuu magacaabo alkaneka sidoo kale dragon alkane uu sameyn karo identify different types qaybaha kala duwan isomerismka uu leeyahay alkaneka inuu sheego inuu qeexo general preparationka ama uu sheego yacni uu sharaxo برمالها لقد ديارش الكينك عفوا iyo sidoo kale physical and chemical properties astaamaha kiimikada astaamaha muuqda ay leeyihiin alkeenka iyo waxyaabaha common ka ee loo isticmaalo alkeenka intaas ayaan ku bar doonaa alkeenka ayagana hore aan socono alkenes waxaan ku definition gareynaa ama ku qeexinaa waxaan leenahay waa unsaturated hydrocarbon waaye containing kuwaas oo ka kooban at least one carbon double bond between carbon atoms waxaan leenahay alkeenka unsaturated waaye unsaturated waxa ka tirsan tahay hydrocarbon marka joogna saddex aan u qaybinay qaybta koowaad oo bondigeed laba aan ku la qaadnay saturated unsaturated saturated waxa ahaa kaliya alkene ahaa alkene iyo alkyne iyo aromatics intaasna waxay ahaayeen unsaturated ay ahaayeen sida darteed alkene marka definition gareynayso ama qeexayso waxa qasab ereyga inaad ku soo darto oo ah unsaturated inaad ku soo darto marka alkenes waxay noqonaysaa are unsaturated hydrocarbons waaye containing kuwaas oo ka kooban at least one carbon double bond ugu yaraan waxay ka kooban tahay hal carbon double bond ay kooban tahay wayna ka badnaan kartaa waxaan u dhaxaysaa marka double bondgaaso carbonada meesha yaalo ayuu u dhaxayn karaa tusaale ahaan meesha waxaa noo taalo laba carbon eth oo ah labo in waxay noo tahay macnaheedu waa double bond eth oo ah laba carbon ayaa taalo meeshan laba carbon marka u jeedaa double bond ayay sameeyaan marka
meeshan waxaa taalo ethene ayaa silsiladan la yidhahdaa ama compoundka loo yaqaanaa. Etheneka marka waa laba carbon waxay sameeyeen double bond ayay sameeyeen. halkan waxaa yaala sidoo kale propene ayaa taalo saddex carbon ay ka kooban tahay laba kamida yani saddexda carbon ayaa waxay sameeyeen double bond ayay sameeyeen. waaya yani double bond wuxuu ka imaadaa dabaradan meesha noo yaalo kulligood mid kasta ay wuxuu leeyahay magac gooni ah marka laga reebo carbon double labadan yani ii sheeg double bond midna waxaa loo yaqaanaa sigma bond midna waxaa loo yaqaanaa bi bond. dabarka isku soo laabmay ee kaarboonada gacmaha u shaqey waayeen isku soo laabmay kaasa waxaa loo yaqaanaa bi bond. kan dhaxda originalka ah oo yani kan dhaxda waxaa la yidhaha isagana sigma bond. marka sigma bond kana waxaa kaloo dhan noqon kara sigma bond kulligood. waxaan kaleeto waa la dhahaa halka carbon ama halka double cafwan doubleka halka yani dabar isku soo laabtay kaasa waxaa la yidhahdaa keliya bi bond. kana waa la mid oo dabarka isku soo laabtay ee waxaa la yidhahdaa bi bond. waxa kaleeto dhanna waa sigma bond ayay noqonayaan. alkenisku waxay leeyihiin qaacido oo ah C7H2N ayay leeyihiin. waxay ku qaacido yihiin cycloalkenka iyo alkenku waa isku qaacido oo mid walba waxa uu leeyahay qaacidadan ayaa ka dhaxayso oo ah C7H2N ay mid walba leeyahay. marka sababtu waxay tahay marka because of double bond alkeniska waxay leeyihiin half pure hydrogen yar ay leeyihiin then correspond alkeniska marka la barbar dhigo alkenka. therefore alkeniska waxaa loo yaqaanaa sidoo kaleeto unsaturated hydrocarbons la yidhahdaa maadaama hydrogenada ay ku yar yihiin waxaa la leeyahay waa unsaturated ayaa la leeyahay. alkeniska sidoo kale waxaa loo yaqaanaa olefins sababtuna waxay tahay waxay sameeyaan compoundska ama dareerayaasha saliidda ah waxyaabaha oolyada wax alaalo wixii yani oil wax alaalo wixii oil family ah ayay alkinku sameeyaan. magacaan oli family ama olefinka meeshaas ayuu ka imaaday magacaan ay leeyihiin oo ah oli liquids ayaa la yiraahdaa. meesha marka waxaa nagu qoran the number of carbon and hydrogen atoms of alkinku ay leeyihiin waxaa lagu xisaabiyaa qaacidadan hydrogen waxay la mid tahay 2n oo ah laba lagu dhuftay number of carbon atoms. sidaa darteed example koobaad waxaan leenahay waxaad soo heshaa the number of hydrogen atoms soo hel oo alkene ah kaas oo leh 5 carbon atoms. sidaa darteed waxaa la siiyey n ayaan haystaa oo ah 5 carbon waxaanan joogaa alkene waxaan iga maqan hydrogen waxaan isticmaali doonaa qaacidadan waxaan leeyahay hydrogen waxaa lagu helaa 2n yani laba ku dhacsan n na waan haystaa waa given waxay noqon doontaa marka waxay la mid tahay 2n n 2dan ayaan soo qaadanayaa n waa la siiyey waa given boska ayaan ku bedelanayaa waxaa soo bixi doonta markaas 10. sidaa darteed 5 carbon oo alkene ah waxay qaadan kartaa 10 hydrogen oo kaliya. example-ka ku xiga asna fiirino waxaad soo heshaa carbon markan waxaa la diray number of carbon n ayaa la diray markan waxaa la diray find number of carbon atoms ayaa la diray alkene ah kaas oo leh 5 hydrogen 4 hydrogen ayaa la siiyey 4 hydrogen atom ayaa la siiyey waxaana la diray n. therefore n ayaan haystaa n ayaa iga maqan h ayaan haystaa. qaacidada caadigeed waxay la mid ahaa jirtay marka waxaan leeyahay n waxay ku la mid tahay n yani waxaan leeyahay qaacidadii hadda aan ku soo xusno ahayd h waxay ku la mid tahay 2n booski baan ku bedelinayaa booska h waxaan leeyahay markaas waxaan ku bedelinayaa 4 oo given ayaan ku bedelinayaa 2n equal to 4 si aan qiimaha anu helo meel kasta horgalaan ayaan u qaybinayaa halkana 2 aan u qaybinayaa halkana 2. therefore waxa ay soo bixi doonta 4 haddii aan 2 qaybiyo 2 ayaa ay soo bixi doonta. classification marka alkenka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. alkeniska are classified into 2 groups loo kala qaadaa oo kala ah symmetric alkenes iyo asymmetric alkenes. symmetric iyo asymmetric intaan tusaalooyinka u gelin waxay la meesha haddaan ku macnay hal mar yani waxay ka dhigan tahay symmetric wax siman waaye asymmetric wax aan sinayn waa. therefore mid aan ogolna marka symmetric alkeneska aan fiirino these are alkenes waaye awa alkenes kuwaas oo same groups are been attached yani groupyo isku mid ah ayaa waxay ku dhagan yihiin to the carbon double bondiga ayay ku dhagan yihiin. tusaale ahaan halka waxaa noo yaalo double bondigan xaggan waxaa ka jira 2 carbon xaggan waxaa ka jira 2 carbon that is symmetric. waxaan dhahnay mar walba waxaa la fiirinaa double bondiga meesha yaalo xaggan meeqa ka jirto xaggan meeqa ka jirto
حقا واحد لبا كجرتو حقنا لبا كجرتو sidoo kale tan waxaad u imaanaysaa xaggan waxa yaalo double bond xaggan waxa ka jirta saddex xaggan waxa ka jirta saddex carbon therefore waa siman yahay oo waxaan leenahay waa symmetric asymmetric aan ugalna marka asymmetric wuxuu noqon doonaa isagana waxa waaye waa alkenes kuwaas oo leh two different groups kor muxuu halkan wuxuu ahaa two same groups waay kan laakiin waa different groups waay arbin attached wuxuu ku dhigan yahay carbon carbon double bond ku dhigan yahay meesha waxaan ugu tala marka double bond ga yaalo xaggana laba ka jirto xaggana saddex ka jirto marka ma sinna waa xaggana laba ka jirto dhankana saddex ka jirto therefore waxaan leenahay waa asymmetric oo double bond ga labada dhinac waxa ka jira ma sinna intii mo dhankan waxa ka jira afar carbon dhankan waxa ka jira saddex carbon iyana ma sinno iyagana waxaan leenahay waa asymmetric iyo symmetric waxa kala duwan marka symmetric waa two same groups waaye kanna waa two different groups aad ma santiin بالله التوفيق أرضي بانها يو أرضي بانها